الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa saxaafadda sidoo wanaagsan oo u qaadanaysa in fariinteeda gudbiso annagoo ku hadlana magaca shacabka reer Gabiley ee aanu xildhibaanada u nahay codkooda ku joogno ayna soo doortay sidaas awgeed maadaama aanu nahay degmada ugu dhow Itoobiya oo aanu jaar wanaagsan leenahay af iyo gacan aan isku nahay waxaanu Itoobiya ka raali gelinaynaa khaladkii ku dhacay ee ka dhacay deegaanka aanu mas'uulka ka nahay arrinka dhammaan shacabka reer Gabiley ku yar iyo ku weyn dhamaantood annagoo magacooda ku hadlana waanu ka tahanbali waanu ka raali gelinaynaa tacsiibana nooga dirana talabaad xukuumadeeda waxaan talo soo jeedinaynaa si heshiiska iyo cilaaqaadkii si wanaagsan looga guul gaaro inaan Itoobiya been loo sheegin waan cidii mas'uuliyadda lahayd iyo falka ka dambeysay magaalooyinka gudahooda joogan ilaa hadda xukuumadda waxaan kula talinayaa inaan laga meeraysan xaqiiqada wax dambiye kuma laha nimanka shaqaalaha darawalka gaadhigu dambi ma leh ninka bodyguardkina waa amar qaatayaal raggii mas'uuliyadda lahayd amarka iyo hawsha ka dambeeyay ee nimanka Itoobiyaanka ah dogmonkoodii iyo alaabaha surtu u jiraan guriyooda la tagay magaalooyinkay joogaan marka waxaan dawladda leeyahay adigoo aan Itoobiya saaxiibtinimada ku tixgelinayay aan been loo sheegin dawladda jaarkanahay taasi oo cid inagu wanaagsan maanta wadana badan naga xidheeyeen qofkii bukeero Soomaaliland Itoobiya taga kii dhoofaya Itoobiya mara dawladdeenu kama maaranto shacabkuna kama maarmo si wanaag iyo walaaltinimadii loo helo waa in xaqiiqada laga sheego dambiga cidii hay toos loogu qado والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت هكذا وحنا أبغى أشارك كسرنا مرة الجيلين دولة إثيوبيا أو أي كذا عادي كيف عادي كذا عاي جوبر في جبلي وحنا هواي نقدر الجيلين هدي أنا هي جبلي وحوي أنا وحنا أحس صارنا هي إنه أمن كدورنا وحنا أحس صارنا إن حسن لولي جوبر كدورنا وحوي مسؤولين تو وحنا لا أنا هاي مسؤولين جوبر في جبلي فرانا بارو شجني وحوي نبغى درينا كشغيان معها وحوي وحي أمنية يو خلق الجلية دولة نمط الصومال لأننا دوران وي نركز كبحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شركة انترايد تجاه نقول إنه واحد من الطماط وراء سبورت نكو تاجر إنه الجلينتي يصير كريمة مدحين كحجين كي يصير كريمة تبدو أي كبحيان فالك كذا عج كبلة. طلبنا وحويان كقرن بينه ديسينا ومد بيننا هاي قرن عرضنا ديسيسا وحنا هبون مروال إن ملقاه الدولة دي ماذا الله إلاليو معمولهان يا شعبي هانبا وحكستو ملقاه الدولة دي ماذا وحيالي أنا ده وحن فيلا يا إنا تاي راد تبينا قصة نقندو مركا ساي وحود عنا وما كاين سكابون نلقاه دولة. بسم الله الرحمن الرحيم وحن مركو هوريك هادليا فالكي فوش حماي halkan wadada ka dhacay kantarool qarbeedkiisa ee lagu la kacay saraakiisha Itoobiyaanka ah ee ka tirsaneyd safaaradda dawladda Itoobiya ku leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland safaaraddaas oo safaaradda kaliya ee wadanka degan waxa aan aad ugu raali gelinayaa dawladda Itoobiya iyo saraakiisha lagu la kacay falka aan anshaxa iyo dawladnimada iyo nidaamka midnaba aan ku haboonayn ee saraakiishaasi lagu la kacay aad baan ugu raali gelinayaa madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibaddana waan ku taageersanahay inay arrinka raali gelin ka bixiyaan waayo mar haday mas'uuliyiinta dawladda yihiin wax kasta oo dib ku keenaya xiriirka labada dal u dhaxeeya oo kharibaya ama xumeynaya ama weeqayaba waxa aan leeyahay sida aad ugu dhiirantiin ugu dhiiranaada baan leeyahay aad baan uga raali gelinayaa dawladda Itoobiya madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirkana waan ku raacsanahay raali gelinta ay bixiyeen. بسم الله الرحمن الرحيم maanta bishu tahay 15 waxaan anoo xildhibaanadii golaha deegaanka raali gelin buuxda ka bixinanaa falkii ka dhacay kantaroolka kala baydh ee magaalada Gabiley runtii dawladda Itoobiya waa dawlad xidhiidh qoto dheer naga dhaxeeyo oo dana badan qarankan iskaga xidhan yahay aan xuduud wadaagno xidhiidhka naga dhaxeeya ee fog ee qotada dheer ee wanaagii walaaltinimada leh waanu ka soo horjeednaa wax kasta oo dhaawacaya dibna u geysanaya
aad iyo aad baanu arrintaa uga xunnahay waanu ka raaligelinaynaa dowladda Itoobiya at the same time xukuumadda iyo raaligelinta ka bixisayna waanu soo dhawaynaynaa waanu ku garab taaganahay arrintan wax laga qabto isla markaana wax kasta oo xiriirka wax yeelaya laga feejignaado